Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa idiin wada dhacdadan ayaa waxay dhacday 1988 waxay ka dhacday wadankaas Lubnaan magaalo yar oo tuulo ah oo ku taalo oo la dhaho Yaareen. Tuuladan ayaa waxaa ku noolaa nin la yiraahdo Saalix oo ari raaca ah ama ari jira ah, ninka xoolaha raaca ah. Ninkan ayaa wuxuu xoolaha u daaqsin jiray habda meeshii naq ka jiro ama uu ka jiro naq leh ayuu geyn jiray. Aduu waxaa dhacday abaar aad u u daran ilaa uu suu xoolihi ugu raadinayay daaqsin ugu raadinayay u socday ilaa uu fogaaday meel uu is dhahin waa tagaysaa ayuu tagay. Adiga Ilaahay amarkiis meeshaas mucjiso ayaa ka socotay meeshii markuu tagay oo dhulku iyo dhul aad u abaaraysan uu ahaa xooluhu xoolaha fogeeyay ninkaas meesha aadka u fogeeyay. Adiga waxaa dhacday way yaqaanaan dadkan reer baadiyaha ari jira ariga raaca way garanayaan xilliga aduu xilli roob soo socdo iyo uu yahay way garanayaan. Markaas roob ma soo socon hawadu way iska ahayd caadi cirku wuu caddaa. Aduu waxaa dhacday ninkan inuu roob cir iyo dhul uu iskaga yimaaday oo ninkan ii sheeg uu roob aad u badan ugu yimid uu socon waayay xoolihiina uu wado meel uu ka soo noqon karana aysan ahayn uu adigu meeshii go'doon ku noqday. Adiga xoogaa buu tuu socday ayuu wuxuu raadsaday meel uu gabaad ka dhigto oo uu uga gabado roobkan iyo qabowgan zaa'idka ah iyo xaaladan uu ku jiro. Adugu wuxuu sameeyay markii dambe god ayuu helay uu ku gaban karo oo qabowga iyo dhibkan uga gaban karo. Qabowgii iyo roobkii ayuu godkii ka galay. Godku marka xoogaa wuu yaraa space buu sameeyay wuu galay. Haduu godkii galay asagoo meeshiis iskaga jira ninkan qorina wuu watay sida reer baadiyuhu qori u wataan bahalada iyo bini'aadamka way iskaga ilaaliyaan qorigooda way iska hubeysan yihiin. Asagoo meeshii ku jira oo qorigiisana haysta oo gabanayana baqayana isna dhahay godka maxaa kala kulmi doontaa ayuu wuxuu maqlay sharqan wuu shakiyay qorigiisa ayuu iska soo diyaarsaday. Haddana wuxuu maqlay qaylo ilmo yar oo oynaya wuu shakiyay wuxuu is yiri amuu jini yahay uu isla hadlay kor ayuu iskula hadlay ilmihii ayaa haddana qayladii haddana ilmaha ayuu maqlay mar kale. Aduu markii dambe wuxuu meeshii iska fadhiyay asagoo gabanaya markii dambe tartiib waxaaba u taabtayba waxbaa taabtay wuu booday boodaankuu booday ilmo yar wuxuu arkay madax gabar yar oo hal sano iyo bil meelahaas jirta timaha saa indhaha uga qariyeen ayuu arkay meeshii ayuu asagii dhag yiri uu ku suuxay. Hadduu meeshii saa ugu dhacay wuxuu soo miirsaday ilmihii yaraa oo xabadka asaga uga jiifa oo ilmihii yaraana ay miir doorsantay waxay ahayd gabar yar oo hal sano iyo bil jirta. Adugu ninkii wuxuu sameeyay gabadh yareed ayuu soo waday uu soo qaaday asagoo cunugta yarta aad u ildaran tahay haraad iyo rafaad iyo dhib ka muuqda ayaa wuu yaabay ilmo yar see ugu noolaan karaa meeshan godkan. Adugu tuuladii ay deganaayeen Yaareen ayuu yimid. Hadduu tuuladii yimid dadkii ayuu arrintii u sheegay oo la wadaago wuxuu dhahay war arrintan ay ugu dhacday gabadhan yarta ayaana meeshaas ka soo helay sidaana waaye cunugta yarta aad u rafaadsan tuu biyo iyo ku qabtay oo wax siiyay ayuu waday oo qaaday. Adiga markuu saa tuuladii u tagay ayuu arrintii u sheegay wuxuu yiri arrintaas maanta igu dhacday waana ka gabadhan yartaana waatana arrintaana saanay u dhacday. Adugu waxa isweydiinaysaan gabadhan yarta maxay ahayd qisadeeda xageesa ka timid waxaa ahayd gabadhan yarta nin iyo naag tuuladaas tuulo wax yar u jirta degan ayaa gabadhan dhalay. Ninkaas iyo naagtaas way isla fakadeen waa aragtay reer baadiyo waa la isla baxaatay isla baxeen reerkooda ay raali ka ahayn ayuu ninkan gabadha la soo baxay oo mehersaday. Aduu markii dambe gabadhan ayay u dhashay yarta. Gabadhan markay u dhashay gabadhiina ninkiina waa kolley nin kula soo marka hore ku soo xaday oo reerkiina ku ogeyn ku mehersaday sida ogtiinba asaga mar kalena wuu cararayaa sida lagu yaqaano ninkii sidii ayuu u cararay asagiina markuu cararay cabaar markuu gabadha dhashay ayuu fakaday ka dhuuntay.
hadduu dhuuntay gabadhii reerkoodiina kuma noqon karto, reerkoodii mar hore kasoo baxsatay. aduu waxay samaysay gabadhii yarta ahayd wax uma hayso, wax meelay wax u keento mataqaan. meeshaas meel u dhow oo wada ah oo geed hoostiis ahayd cunugta dhar u xirtay ay fariisisay ayay ka tagtay gabadha yarta waa iska soo dhaqaaqday iyadoo iska ambad ah oo soo dhuntay, yacni meeshii geedka hadday fadhin lahayd xataa dad baa arki lahaa, laakiin waa ilmo yar waa iska dhaqaaqday dhanka duurkay gashay ilaa meeshaan cidlada ah ay timid oo godkan ay yacni markii dambatay yacni qarqartay ay yacni godkaas gashay. adugu waa loo sheegay, waxaa la yidhi gabadhaas baa yacni arrinta yacni siduu ku ogaaday ninkaana waxay ahayd naagtii ayaa waxay maqashay gabadheedii yarta ahayd qisada, waxay maqashay gabar yar dee eriyadii dhan ayaa magaalooyinka u dhawaayo dhan ayaa laga sheegay. waxaa la yidhi gabar yar ayaa god laga soo helay. aduu way maqashay arrintii, waxay u timid ninkii ayay u timid iyo muxuu ahaa arijiraha ayay u timid. waxay ku tiri yacni gabadhan waxay u timid iyadoo raadinaysatay akhbaartii maqashay iyo dadkii isku sheegaya gabar yar ayaa god laga helay, ayaa waxay u timid ninkan yacni arijiraha oo lagu magacaabi jiray Saalax. ninkan Saalax nin muxtaram oo aad dadku u jecel yihiin oo aad u qiimo badan ayuu ahaa, ahludiin ah. ninkii ayay u timid oo ku tiri gabadha tilmaamta noocaas leh ayaa rabaa, maxaa gabadhaada xagee ku ogeyd buu yiri. qisadii ayay uga sheekaysay in gabadheeda yacni aabaheed uga dhuuntay, iyadana meel ay geysatay weyday, ay istiri qof islaam ha qaato oo ay istaajisay geed hoostiisa oo ay ka dhaqaaqday. adiga mucjisada meeshaan ah ayaa waxay tahay gabadhan yarta ah ilaahay ayaa badbaadinayay oo ilaahay yacni meeshaas ay ku jirtay godkaas tuulo uma dhoweyn oo bili-aadan uma dhoweyn oo meel waxay ahayd aad u fog oo god ah. yacni meeshaas waxa geeyey Saalax asagoo arijire ah tawaday oo geeyey, yacni meeshaas fog geeyey waa qadarta ilaahay oo weliba ilaahay sabab uga dhigay. yacni ilaahay mucjiso waaye oo ilaahay uu ku badbaadinayo inantan yarta oo ilaahay maaragta mucjiso yacni cirkii oo yacni roob jirin oo xilli roob aysan ahayn oo dadkii ay abaar aad u xun hayso, yacni in ilaahay roob keeno. roobkaas yacni asagoo yacni ka cararaya iyo qabowgaas iyo roobkaas iyo ka cararaya inuu godkan galay yacni Saalax. sidaasna gabadha yarta lagula kulminayo waa ilaahay, yacni ilaahay hadduu doono dee yacni inuu qof bili-aadana badbaadiyo oo ilaahay adduunka uu uga sii qoran yahay nolol, dee ilaahay wuu badbaadinayaa. mucjisadaas ayuu ilaahay gabadha yarta ku badbaadiyey. ninkaas Saalax oo nin aad u wanaagsan ah ayaa ilaahay usoo diray, sidaas ayuuna maaragtaa ilaahay maaragtaa ugu fududay inuu gabadha yarta lagu soo badbaadiyo. Saalaxna sidaas ayuu maaragtaa gabadha yarta hooyadeed ku siiyey maadaama tilmaamtii yacni ay is yeesheen oo tilmaamtii iyo ay is yeelatay gabadha yarta si hooyo yacni tilmaamta gabadha yarta iyo is yeelatay maamada maaragtaa tilmaamtii sheegtay. asxaabey intaan maaragtaa qisada ku kulmayno qisadana maanta intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. intaan mid lamida ku kulmi doonana waxaa idinkaga tegayaa fi amaanillaah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.